Süper. Ha, buyurun Gökhan Bey. Süper. Kesin Adali Birleşik bir küçük kardeşi. وسحنا شلون سحنا Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. لا والله بالله يا عبد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ugu horeyntii waxaan maantayto iskugu nimid halkan in aan ka bixino war-saxaafadeed ku kooban maxaa la dhahay shirkadda cusub ee Albaric ee dekedda Muqdisho maamuli doonto iyo dhammaan stakeholderska qaybihii kala gedisnaa ee ka shaqayn jiray meeshan isfaham aan wada gaarnay marka hore waxaan salaamayaa wasiirka wasaaradda wasiir ku-xigeenka maxaa la dhahay xafiiska madaxweynaha la taliyaha xagga sharciga agaasimaha la taliyaha xafiiska prime ministerka gudoomiyaha guud ee rugta ganacsiga gudoomiye ku-xigeenkiisa iyo dhammaan xubnaha muhiimka ee chamberka ka socdo rugta ganacsiga ka socdo guud ahaan saraakiisha meediyaha iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee naga daawanayso ama naga dhageysanayso warbaahinta kala gedisan assalaamu alaykum waxaan filayaa in muddo dekedan way soo shaqaynaysay waxaynu ku soo shaqaynaysaa ayadoo qaab structure fiican aan lahayn oo maxaa la dhahay qalab aysan lahayn alxamdulillah dawladda Soomaaliyeed waxay si buuxda u heshiisay shirkad kamida shirkadaha Turkiga oo la yiraahdo Albaric oo loogu talagalay inay hormariso baaxadeeda ballaariso shuruucdeeda iyo structure-keedana ay dawladda kala qayb qaadato sidaas daraadeed waayahan dambe waxaan ku jirnay bariyahan dambe ku howlan inaan isfaham ka sameeyno dhammaan xoogsatada muruqmaal iyo majukuus ganacsatada iyo qaybaha kale oo kala gedisan ee dekada ka howlgeli jiray haday ahaan lahayd shaqaale weynaha iyo haddii ay ahaan lahayd dhammaan ciidamadii nabadgelyada ee dekada mas'uuliyadda ka saarneed alxamdulillah maantayto oo bisha tahay Oktoobar 10 waxaan idinku wargelinaynaa bisha 10aad raaliga ahada bisha 10aad ee sanadka Oktoobar in maanta ay tahay 1 waxaan idinku wargelinaynaa dhammaan wixii mushkilaad ah ee jiray xan iyo cilado kale jiray dhamaantood inaan ka heshiinay si gaar iyo si guud in loola shiray xubnihii stakeholderska ah ee dekedan inta muddo ka soo shaqaynay afgarad fiican oo na dhaxmaray wixii hadda ka dambeeyay ama qaad iyo horumar guud oo ay dekedda Muqdisho ku taslaabsan doonto ayadoo ay jirto hadii la yiraahdo waxaan idin sheegaynaa dekadu muhiimadda gaarka ay u leedahay qaranka Soomaaliyeed ama qaramada jira adduunka nin walba uu garan kariyaa dawladdu waxay ku dhansantaa inay income hesho income-kaasna waxay ku heshaa noocyo kala gedisan oo ah ama canshuur ay qaado ama service ay qaado dekada Muqdisho qaybta canshuuraha waxaan filayaa in ay ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda inay dakhli canshuuraha laga qaadi jiray xagga maamulka dekada Muqdisho oo servicekeeda oo aad u dhaawacnay ama oo ahaay wax aan waba jirin maantayto alxamdulillah horumarkan aan rajeynayna inaan bilaawno oo dekada inay bilawdo shirkaddan Albaric waxa ka imaan doonto hadii la yiraahdo income aan jirin horay u jirin 20 sano oo ay dawladda Muqdisho ee dawladda Soomaaliya ay kaashan doonto oo ah service alxamdulillah dekaduna ay horumar guud ku gaari doonto tigsan doontana caalamka standardadiisa inay ay levelkiisa ay gaarto noqon doontana mid badeecad fara badan ay timaado maraakiib kala gedisan ay timaado waayo dekada Muqdisho waxaan garanaynaa laga soo bilaabo ankorka ilaa geed baaska looga baxo dhamaanteed burburka guud ee ummadda Soomaaliyeed ku dhacay dhinaceeda kaga dhacay haday ahaan lahayd beertiyadeeda oo burburay baqaradeeda oo burburay draftiga ama dibtiga ama moolka
maraakiibta ay ku soo xirto oo dhammaantood qaybaheeda oo dhan aad u dhaawacan oo ayadana u baahan in dayactir guud oo carabixin lagu soo biyo waxaan filaynaa in beertiyada la balin doono haddii ilaahay yiraahdo nidaamkaas guudna waxay ku imaan doontaa shaqada inay noqoto mid speed ah waxaan kaloo si gaar ah ummadda u xusuusinayaa inay jiri jirto markab container markuu yimid haddeertan waxaan caalamka ku xaqiijinaynaa qalabka ay keeneen shirkadani inay noqon doonto muddo 48 saac markabka inuu santii taagan saas daraadeed markabka baxwana markab kale uu ku soo xirsan doona badan doontana maraakiibta ku soo xiranaysa dekedda Muqdisho badan doontana shaqooyinka laga qaban doono badan doontana canshuurta dawladda ay keenayso si gaarana ay dawladdu uga heli doonto income service ah oo dekeddu aysan hore u dhiibin jirin taasuna ay noqon doonto mid wax looga qaban doono howlaha guud ee dawladdu u samaysantahay xagga ammaanka iyo wixii lamada waxbarashada caafimaadka waxyaabaha noocaas oo dawladdu ma jiri karto haddaysan income joogta aysan lahayn sidaas daraadeed waxaan maantayto caalamka iyo ummadda naga dhegaysanayso u sheegaynaa in ay maantayto alxamdulillah oo ay tahay 1 bisha 10 ee Oktoobar in wixii mashaakilaada isfaham darro ah ee ka jira dhinacyada dekedda Muqdisho ka howlgali jiray hadday ahaan leed xoogsatada oo muruqmaal iyo majukuus u kala baxo hadday ahaan leed ganacsatada kala gedisan badacadaha kala gedisan keeno dhammaan iyo shaqaale weynihii ka shaqayn jiray iyo cid allo ka howlgaleed inay maanta wixii ka dambeeyay ay arrimahaasi ay dhamaadeen ayaan ugu talagalnay war saxaafadeedkan inaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan aan weysno wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xafiiska presidentaha مسؤولينta xafiiska ra'iisul wasaaraha maareeyaha dekedda gudoomiyaha ku-xigeenada rugta ganacsiga iyo ganacsatada gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir iyo dhammaan ganacsatadeena iyo shirkadda mas'uuliyiinta shirkadda Alberg dhamaantiin waxaan idin leeyahay xogsatada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo kulankan maanta oo ay soo qaban qaabiyeen wasiirka iyo asxaabtiisuba oo ku saabsan ahaa dhibkii tirada badnaa iyo shaqada tirada badnaa la soo qabtay in maanta in stage inay gaartay in halkan la iskala cadeeyo aadan ugu hambalyeynaa oo ka mahad celinaynaa runtii markaan ganacsatada anaga aan nahay amrugta ganacsiga Soomaaliyeed ba aan ku hadlayno codkeeda anaga aadan u soo dhaweynaynaa dekedeena inay horumar fiican samayso oo company-gan hadda Alberg ay qabtay hadda horumarinaya inuu aad u horumariyo aadan u soo dhaweynaynaa raali aan ka nahay in tadawur fiican aan gaarno ganacsato ahaan intaas kadib waxaan rabnaa waliba Alberg kaliya maahayna waxaan isleenahay hatta waxa ku dhex jirta abaalmarin oo Turkiga aan isleenahay meesha uu naga soo qaaday iyo meesha hadda aan isla marayno wax hadda laga samri kara aan ahayn marka aad inoo dhibaysay in magacaasi qof ku socda ama Alberg oo magaca Turkiga ku socda in xagaxagatin ama wax uu khalad in laga sheego waa ka xanuunsanaynaa laakiin haddana waxaan fiirinaynay dhammaan inaan isla helno danaha guud ee ka soconaya marka intaas arrinta uga soo daadago anaga ganacsato ahaan waxa dekedda naga khuseeya qaybta xoogsatada oo aan isleenahay xiriir aad leedihiin iyo ganacsiga guud oo tariifada oo aan aad u fiirinaynay iyo qalabka oo isleenahay shirkadaha linerska oo qayb kamid ah ganacsateena ah waxaan moodaa marka qaybta oo xoogsatada hadda arkayseen waxa laga gaaray heshiis fiican qaybta ganacsigan oo tariifadana bariyahan oo dhan aad uga howlaneyn stage fiican ay maraysaa isfaham fiican hadda aan isla gaarnay wasiirka khayr Allah si iyo maareeyaha oo bariyahan aad noola shaqeynay si badanna aan isla fahmnay abukaataha iyo saaxiibkay oo isla wada joognayba waxaan isla soo gaarnay level fiican oo inaan isku qancino ah inaan dekedda lagu shaqeeyo wixii hore loogu shaqeyn jiray haddii wax laga bedelayo waxaan macna lahayn in ay ahaato wax laga bedelayo waxaan kaloo isla gaarnay in waxyaalaha la dhoofinayo exportiga ah in priority badan la siiyo si oo dalku u helo waxa aan dibadda u dhoofinayno inay hesho maxaan ku raahdaa qiimo jaban waliba serviceka xaqiisa awalba canshuurtu aad isaga jabneed waxyaalaha la dhoofiyo serviceka xaqiisana shirkadda Alberg waxaan ka codsanaynaa inay ay very cheap ka dhigto waxyaalaha la dhoofinayo si dalku waxyaalaha uu ka kaban doono dhaqaale ahaan meesha noqonaysa waxyaalaha marka la soo dejinayo importiga ah waxaan isla gaarnay qiimihii hore looga shaqeyn jiray meel ku dhadhow aad macquul ah wasiirkana hadda maanta go'aanka madamista asaa noo soo saaray waan ku qanacsanaa anaga ganacsataan inaan kala shaqeyno ciladaha yararka ee jirana waxay noo ballan qaadeen in tartiib loo bedeli doono waliba waxay noo ballan qaaday oo hadda cabsi badan ay naga haysaa laakiin aan ku faraxsanahay inay dhici doonto mustaqbalka in dekedda servicekeeda haddii ay noqoto alaab badan inay timaado in la dhimi doono oo taas aan isleenahay wax badanna haddii serviceka oo dekedda oo yaraado inaan wax badan keeni doono anaga laftigeena oo ganacsatada aad u shaqeyn doonto waan rajaynaynaa
in barnaamijka lagu guuleysto marka waxaan rabaa finally inaan uga baxo inaan anaga ganacsata ahaan aan stage fiican marayno maanta aan soo dhaweynayno tariifada aan la gaarnay dawladda ayada xaq u leh inay final go'aanka wadameysta inay qaadato taladeena aan soo jeedinayno waa inaga aqbashay waan uga mahad celinayna waan rajaynaynaa in lagu dhaqmo insha Allah aad u mahadsantiin albeerigna mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayna waxaan leenahay shirkadda albeerig waa cusub tihiin akan iyo jabinayna dalkan dadkan waa idin baahan yihiin inaad wax badan ka bedeshaan dadkiina soo jeedataanna waa rajaynaynaa future-kana ganacsi badan oo Turkiga waa rajaynaynaa inuu halkan ku soo xirmo insha Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum. We also as Al Bayrak thank you very much to all Somalian representatives, Mr. Ministry, that they are welcoming us and they are supporting us on every issue. We thank you very much. Your welcoming is highly appreciated. As of today, inshallah, the port operations will go smoother without bigger problems, and we will start our investing to this port. This port needs urgent investments. This is a very important port for the side of Indian Ocean of Somalia. There are smaller ports around this country which are making a lot of money. Our aim as Al Bayrak is to bring this port to higher level standards, world standards, as soon as possible. I personally think that Somalia doesn't need any donations. We call our country African Horn, and we have the biggest and longest coast of the African side. Therefore, we have to use this coast and make it beneficial as soon as possible, and we will inshallah take this port to higher level standards as soon as possible. This port needs urgent investments such as tugboats. Our tugboats are very old. We need to invest on tugboats as soon as possible. If not, we will not be able to berth any vessels, which will affect the trade very big. This port has been done 20,000 containers last year. This year it will exceed around 50,000. Next year it will maybe reach to 70,000 inshallah. But with these numbers, we have already brought one crane, mobile crane for container operations. But this port also needs the second one urgently, because the container movements are increasing now, and inshallah they keep increasing, which means the trade is increasing. We will soon make a fair in Turkey to support the exporters of Somalia also, and take the exporters to the Turkey, and meet with the businessmen over there. The second thing, after the investments, we have to support the export of the Somalia, which is much more important than importing trades. So I again thank you very much, Mr. Ministry, His Excellency, for his support during this period. He worked so hard for us. He has supported us so much. There are a lot of gentlemen here who has supported us with him, next to him. Mr. Abdullahi, Mr. Jamal, Mr. Abdi, all other supporters, we highly appreciate their support. The businessmen who is understanding us, we thank the union. Finally, we agreed with them, and we will make better things for the sport all together, inshallah. And I thank you very much. Thank you very much. kaloo aan ka tagay sidoo kale intaas ka bacdi madaxda ka hadashay arintan meesha ay dhigtay aan la dhignay siday u sheegtay u jirtaa cid kastaaba cid ku faraxsan iyo cid maaragtay wax tabanaysaaba waxaan gaarnaa anagu bil tijaabo ah oo shaqo wanaajina in aan galno ka bacdina leesaga yimaado waxaan u maleynaa inta wanaaga ku faraxsan waa badan tahay wanaag wixiba ah waa ku wada faraxsanahay
waddankeena wanaagiisa waa wada jecelnahay horumarinta waa wada jecelnahay mas-uuliyaduna ma dhinno waxaa la yidhi ciduna uma maqno ceelna uma qodnaa la yidhi hadday baahiyu jirto laakiin hadda ma aho ciduna waa u joogtaa ceelna waa u qodan yahay sidaas daraaddeed waxaan soo dhoweynaynaa isfahamka guud si gaarana waxaan aqbalnay wixii aan ka sheekaysannay oo ku saabsanaayey mas-uuliyadda meesha nooga aadan insha allahu tacaalaa waxaana ku shaqay doonaa si wanaagsan waxaana isla arki doonaa siday noqoto waxaana ku faraxsannahay wax wanaag hoosoo ilaahayna siiyo wixii maaragtay sheekooyinka hadda aan isa gaarnay in waxyaabaha qaar xagga xoogsatada dib loogu noqdo tijaabada bisha lagu saxo wixii qaldama hadday wada wanaagsanaadaanna sidaas lagu wada faraxsan yahay ayay taladu ahayd sidaas daraaddeed waan nahay daawo heshiisaan nahay waana soo dhoweynaynaa dowladda iyo kambaniga ay keentaba wixii aan qaban karno karaankeennana waa qabanaynaa waa mahadsantii intaas kadib sida akhyaarta iga horreysa u sheegeen waa ku faraxsannahay heshiiskan wada gaarnay kadib markii arrinta kor nooga kacda wax yar heshiiska aan gaarnay waa ku faraxsannahay ibni aadamku waa iska naaqis waa la isqaba karaa laakiin in la heshiiyo heshiiskan uu ahaado mid dhaba ayaa loo baahan yahay annagu horumar diyaaran u nahay haddaanna xoogstada dekadda xamar horumar diyaaran u nahay 100% dadka hadduu waddanka la horumaraayo aan wakiil ka nahay oo masaakiinta ah ganacsatadana waa kuwan u shaqaynaynay dowladdana waa dowladayni wixii naga khaldamana iyagaa la rabaa in noo saxaan waxaan heshiisaan galnaa hordhaca heshiiskaasna wixii khaldama in lagu saxo oo baraatika horta la sameeyo lagu ballamay qaybihii dadka oo teknikada ahay namaareen ku wareejinay sida weeshwadihii kooxdii farsamada tiriyaashii badeecada dhammaan ku wareejinay xoogstadiina waxaan helnay tacriifo aanu siiyey marka madaxdeenna codsi aan u jeedsanay waa naga aqbaleen inay wixii dhiman saxaan wixii tabana ay daaweeyaan waa naga aqbaleen waana heshiinay 100% wax naaqiso haba yaraata ma jiraan waa u mahad celinaynaa dowladdayna wasiirka ugu sarreeya hadda meesha joogta madaxda ganacsatada u shaqaynaynay ama loo shaqeeyo ah ruuta ganacsiga iyo mas'uuliyiintiisa oo mahad celinaynaa saraakiisha waa mahadsantihiin 100% assalaamu calaykum xariiqa ciidanka booliiska wakiilka iyo magaca hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo fadhiyada hoos yimaada raggii ka soo shaqeeyey hawshan oo wasiirka ugu horeeya dekedaha ganacsatada iyo runta ganacsiga wasiir ku-xigeenka iyo butaan madaxda kale oo ka socota xafiisyada madaxweynaha iyo xafiiska prime ministerka masar mustafa oo shirkadda albeerg madax ka ah iyo odayaasha kaleeto ayaguna wakiilka ahaa ama madaxda ka ah muruqmaalka iyo imidkooda runtii annaga ka booliis ahaan waxay noo leedahay shirkan maanta farxad gooni ah farxaddaas waxaa weeye annaga og xanuunka iyo walwalkana galay maalmihii lasoo dhaafay ismandhaafkii yaraay intuu socday oo heshiiska aan weli aan la gaarin xagga nabadgelyada walwalkii iyo xanuunka naga qabta aniga marka si gaara ayuu annaga oo noo taabanaya hoggaanka ilaalinta canshuuraha wuxuu leeyahay wuxuu ku shaqeeyaa 2 fays waa xagga nabadgelyada xarumaha waaweyn ee xasaasiga ah ee lafdhabarka iyo halbowlaha dowladda ay leedahay oo sida dekedaha iyo arborada nabadgelyadooda iyo bangiyada meelahaas intaan muxuu ahay nabadgelyada waxaa u xil saaran hoggaanka ilaalinta canshuuraha oo haddii wax taabtaan ay taabanayaan qarannimada Soomaaliyeed xag dhaqaalo xag siyaasad iyo mataqan muxuu ahay xag bulshada waxaad dareemi kartiin inta mujtamac Soomaali oo kala duwan oo dekedan wax ka shaqeysta iyo wax isticmaala
leh haddii wax yar nabadgelyo aysan jirin isagoo shaqayn karin waxaan ku faraxsannahay in dekeddan waxaa looga shaqaysan karaa in dadka isticmaala iyo dadka ka shaqaystaaba in ayagoo isfahamsan oo raalli iska ah qolo walba meesha shaqada ay ka leedahay inay ka aado aniguna aan dhex joogno oo wixii zaa'ida oo yaryar aan ka qabanno dhinaca kale oo waxa weeye waa xagga ilaalinta cashuuraha waxaan taaganahay iridka iyo wax kasta oo dekedda ka soo baxaya oo buleeto wata ama cashuuraha fahada ama ha cashuurnaadaane inaan hubinno buleetadaanu sax ma tahay dadka ama ha ahaato cashuurdhaaf ama ha ahaato cashuurnaatee badeecada baabuurkaas saarno ma tahay badeecada meesha ku qoran tiro ahaan iyo tariif ahaanba tariifadiina ma soo isticmaalay si mataqaana aan u waafajinno nidaamka cashuuraha waxa weyn maaha warqad yar qoran rukuba la yiraahdo wixii cashuur zaa'id ku ah oo in dib loo soo bixiyo cashuur dawladda labadaas fiisaan ku shaqaynaa laakiin midka ugu culus waa midka nabadgelyada markii intaanu meesha ma ka wada shaqaysan karto danahay leedahana ma ka fushi karto haddii meeshu aysan nabadgelye ahayn ama aan isku waafaqsanayn sidaa darteed marka anaga aad iyo aad aan wax ugu mahadinaynaa ilaahay ka sokow madaxdii isku hawshay oo ka shaqaysay inay isku soo dhaweyso aragtiyada kala duwanaa iyo gorgortankii xoogganaa iyo yani muxuu ahay in laisu keeno oo dhinacyadii laisu soo dhaweeyo aad iyo aad aan ugu faraxsannahay weliba anaga si gaar ahaan guriga bulshada haddaan nahay ilaahay khayr adiga siiyo waxaan rajaynaynaa in halkaas mataqaana muxuu ahay uu halkaas ku istaago wixii muran ahaa iyo wixii khilaafaad ahaa qolo walbana mataqaana markay shaqadeedii qabsato wixii zaa'idana iyadoo tallaabo la qaadin wixii ciddii dacwo qabtana ay noo timaado iyadoo wuxuu ahay meel kale aadin ama wasaaradda ay tagto ama maaraynta ay tagto laakiin inaysan iyadu si looga bartay 20 dhowrkaas sano in qofkii dareeme in xuquuq ka maqan tahay uusan asugu meel xafiisay uusan aadine inuu asugu dabco inuu sharci gacantiisa ku fushado wixiisa xoog ku doonto waxaan rajaynaynaa in arrimahaas istaagi doonaan oo xoog wax lagu doonin ama mataqaana muxuu ahay nidaamkaas uu siisaba xoog wax ku doonin inuu dhammaadaan aan u filayaa oo markaan leedahay nidaam iyo xafiisyo loo maro oo loo dacwoodo oo qofku wixii xuquuq uu leeyahay u soo celinaya hadalka mar rabo in ku dheeraado wasiirka ka dambeeya kadib anigu war badan runtii inaan halkaan ka iraahdo ma rabo wararkii badan asxaabtii iga horreysay ayaa dhammaysay laakiin waxaan rabaa hal shay horta inaan ka dhawaajiyo ummadda Soomaaliyeed waxaan qirayaa in ay haddii ay wada hadasho ay waxeedo dhan wada hadal ku dhammaysan karto arrintaani waa arrinta ugu adag oo qof bini aadana sameeyo oo isbeddel xooggan ah tiin waxaa looga gudbay in la wada hadlo intii ay khuseynaysay arrimahan oo dhan ay ka wada hadlaan ay ka wada heshiiyaan isfaham ay ka wada gaaraan marka intii oo gacanta laga hadli lahaa waxaa fiican in la wada fariisto la wada hadlo geedkan hoostiisa ayaan ku dhammaysanay wixii oo dhan muddo 10 beri ah isfaham la'aanta ka jirtay dekeddan qaybaha kala duwan oo dekeddaani oo shaqooyinkeeda ku howlan ay ku dhammaysteen isfaham la'aanta isfahamna ay ka gaareen waxaan rabaa in aan halkaa ka sheego yani waxaa weeyaan annaga keliya dawlad ahaan ma aanan dhammaysan hawshaan rag badan ayaa nala dhameeyey oo har iyo habeen nala soo jeeday oo wanaag raadinayay oo nala gartay meesha aan u soconno oo wanaagga ah iyo horumarka aan u soconno nala gartay ragga kale oo na dhegaysanaya ama naga daawanaya TV-gana waxaan u sheegaynaa inay nala gartaan inaan wanaag u soconno horumar aan u soconno aan yani hiigsanayno horumar aan hiigsanayno inaan gaarsiino waddankan dhibaatooyinkii ku jiray inuu ka baxo inaan gaarsiino inaan hiigsanayno inay nala fahmaan ayaan rabnaa bahda saxaafadda oo i dhegaysanaysa qaarna inta ay joogaan waxaan rabaa ayagana hal kelmad inay idhaahdo waxaan rabaa bahda saxaafadda waa ogahay
wararka waxyaabaha sameynaya waxyaabaha xunxunka waa laakiin waxaan jecelahay positive-kana inay si fiican ay u sheegaan ay mar walba sheegaan waxaa jira idaacadaha markaan dhagaysto wararka negative-ka aada loo boonboonina anoo wasiirka dekedaha ah iyo gaadiidka badda iyo mas'uuliyiin kaleba wararka aan sheegno waxaa laga yaabaa wax yar in laga soo qaato laakiin nin jidka iska joogo qaylinay oo le waa li dhacay waa li dilay saasaa la yeelay intii way ay buunbuuniyaan marka waxaa jeclaan lahaa waddanka marxalad adagu ku jiraa qaybta aad ka qaadanaysaan inay noqoto qayb lixaad leh oo la toosinayo ummaddan wararka waxna waa lagu duwi karaa waxna waa lagu hagaajin karaa marka dad dhalinyar aad ugu faraxsanahay oo hadda soo baxay oo wariyaala oo runtii aad u firfircoon ayaa jira waxaa idinkula talinayaa in dhanka wanaagsan aad mar walbaba aad xigsataan dhanka xun aynaadan xigsan taasi waxaa weeyaan bahda saxaafadda ayaan leeyahay oo aan experience u yeeshay intaa yarta ah muddada 10 beri oo aan ku dhex jirnay yani fikradaha kala duwan dadka ka shaqaysta iyo dadka dareeya dekadaanba fikrado kala duwan ay qabeen fikradaha kala duwan dhexdooda waxaa iga soo baxay bahda saxaafadda inay buunbuuniso waxyaabaha aan loo baahnayn sidaa darteed waxaan idinku boorinaya waxa fiican inaad idinkuna aad ummadda u sheegtaan oo aad tiraahdaan waxaani waa wax fiican tan kale waxaa runtii oo guul weyna maanta inaan is-afgarad gaarnay qaybaha kala duwan oo dhan waxaan rabaa is-afgarad la'aanta waxa meesha ka jiray oo aan isku afgaran weynina inaan iftiimiyo waa rabaa qaybta xoogsatada is-afgar la'aanta naga dhexeeyay waxay ahayd ma ahayn mid dad la ruqsaynayo shaqadooda weynay cunto weynay iyo saas ahayd ma ahayn waxay ahayd qaybta tariifada ama qaybta yani waxa weeyaan yani ay ku shaqaynayaan lacagaha ay ku shaqeeyaan ayaanu iska afgaran lahayn oo marbaba aan isu keenaynay isu meel fiican hadda aan dhignay oo aan jecel lahayn wax kastoo la bilaabay dhibkeeday leeyihiin haddii ay wax ka soo noqdaan inaan dib ugu noqono sida uu heshiiska aan yani is-afgaradka aan gaarnay dhigaay qaybta kale oo ganacsatada badeecooyinka dekada kala soo dega ayagana waxaan oo nagaga dhaxeeyay oo aan isku afgaran lahayn tariifada la saarayo badeecada tariifada la saarayo laga qaadayo oo service ahaan looga qaadayo cashuur ma aha service ahaan loogu qaadayo ayaanu iska afgaran lahayn taasi dood dheer ka badan waxaanu isla afgaranay wax ummadana qaadi karta aanan runtii aan oo looga badinaynin tan hadda ay tahay tariifada hadda taagan inaan looga badin midda tariifada taagan haddeerta lagu wada qaado kadibna haddii ay shaqadu sii socoto oo ay kororto badeecadii imaanaysana in dib loo dhigo sida guddoomiyaha uu sheegay ayaan isku afgaranay marka waxaan leeyahay maanta laga bilaabo in aan wada shaqo geli doono wixii oo soo baxa oo la arka inay waxaasi ay dad ay ku dhiban yihiinna dib ayaan ka saxaynaa wax kastoo isbedel dhaca nin kasta yani waxa weeyaan ku maqsuudi maayo ku farxi maayo waxaa laga yaabaa in dad ay mataqaana ay ka waayeen waxyaabaha ayagu ay rabeen yani arrintaani inay isbedelkan dhacay waxyaabaha ayagu ay shakhsiyadooda ama ha ahaata ama ururkooda ama wax kasta ha ahaadaan ay wax ku waynayaan way jiri doonaan kuwaasina haddii ilaah yidhaahdo waxaan rabnaa dowladdu in mataqaana waxay karaankeeda ay wax kala qabato laakiin waxaan aaminsanahay 99% ummadda Soomaaliyeed arrintan la sameeyay mid wax tara waay oo wax noo tarayso waana idinku mahadcelinayaa inaad nala garateen hiigsiga aan hiigsanayno iyo meeshaan u socno wabilaahi tawfiiq wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh
أنا